xaflad ballaaran loogu talagalay qalinjibinta 8 arday oo dhameystay xirfadaha kala duwan ee gacanta kana soo qayb galeen maamulka gobolka madaxda waxbarashada mas'uuliyiinta hay'adda Candlelight iyo marshar badan ayaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi Candlelight Maxamed Saciid Cadaad oo ka mid ah madaxda sare ee hay'adda Candlelight ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay xirfadaha kala duwan ay barteen ardayda qalinjabisay. waxaan yara faahfaahinayaa tirada ay kala yihiin ardaydan qalinjabisay maanta guud ahaan tiro guud waa 8 arday waxa dhameystay xirfadda dawaarka 19 ardayna waxa dhameystay xirfadda xinaha 17 waxa dhameystay xirfadda nijaaradda 16 waxa dhameystay xirfadda biyagelinta inama habla marka loo eegana way isleeyihiin mashruuca waxa maalgelisay hay'adda qaramada midoobay loo yaqaan UN Habitat waxaana soo bixisay dawladda Japan Candlelight-na way fulinaysay 3 bilood ayaa la tababaray ardayda oo qof walba la siinayo shahaadadii cadeynta wahayd wixii uu bartay iyo qalabkii uu ku shaqo tagi lahaa labadaba sharaf iyo qiimo weyn bay noo tahay haddaan nahay bahda Candlelight arday tababarkoodu uu socday muddo in maanta aynu halkan ugu soo xidhno gudoomiyaha hay'adda Candlelight ee gobolka Togdheer Professor Xasan Cabdulaahi Faarax gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Xasan Jaamac iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim ayaa iyaguna ka hadlay xafladaasi mashruuca ujeedada laga lahaa runtii waxay ahayd qof kasta oo tababar la siiyaa inuu ku soo kordhiyo oo uu kor u qaado dhaqaalaha reerka family-ga dhaqaalihiisa marka ugu horeysa iyo ka family-ga iyo ka magaalada Burcaba waxaan ilaahay ka baryaynaa in ujeedadii mashruuca laga lahaa inay fulisaan oo aydan qalabka guryaha iska dhigan qaybtan xirfaduhu waxaana weeye hay'ad ama NGO ku soo kordhiyay horumar gobolka iyadoo waxbarashada la aqoon xuruuf badan xirfadyahan aqoon la xulafada waxbarashada keenay xeerka loo mar waa taa xuruuftii xidigaha maraysa Candlelight ugu xaasila in dugsi farsamada gacanta ee Candlelight oo waliba gobol ahaan aanu gaar u eegi doonaa ardayga waxba la baraa laakiin wixii uu ku shaqo tagay lama siiyo laakiin hadday awoodeen inay waliba qof kasta siiyaan qalabkii wax ku samayn lahaa waanu mahadnaqaynaa gabagabadii xafladan ayaa ardaydii qalinjabisay la guddoonsiiyay qalab loogu talagalay inay ku xoogsi tagaan iyo shahaadooyin hay'adda Candlelight ayaa gobolka Togdheer ka fulisay mashaariic kala duwan oo horumarineed isla markaana dadaal weyn ugu jirta sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa shaqo abuur loogana hortagi lahaa aafada tahriibta Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.